عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا جنرالنا ممكن كراية شافعي لف ما أنت برامج كينو برامج شيء أنا وبرتين وكدوية هاي وحنديش إنها قبل ولا شيء أو اللي هذا الصقل وكنا وده كاس كندا لكن هذا اللي ما عارف ما تجوبته وده كاس مريكا كارهان مقال لي ده هشتر شافعي والله الصقل وقبر حنوصل أو صوماليات قبردان قبر دبن وقلنا الأحسن يا حنون كان هاي وحوقها دودون بدن سيد هنديا كندا ولوس والله واحد عيقة وكان ملا يعني كده مريكا كانت تمادي لا تصوماليا حوصل بندقتين العقو قربيان جو فيلم محلها جو فان سو marka konton kun ku soo qalabtay hadda ugu 40 kun loo gurbiyo 10 kun ka dhiman taas inuu baahan tahay marka hadda dhakhtarka la kulantay video ee ka sheekeynaysa dhakhtarka wixii ay la kulmeen yahay aan daawo doonaa Assalamu alaikum ma sha Allah maanta waa farxad sanay farxad wallahi ma sha Allah maanta waxaan tagay doctorka alxamdulillah waa la kulme wuxuu ii sheegay option yaal oo 3 xabo option oo dawooyin oo maxaa la dhahaa oo cusub yihiin alxamdulillah wuxuu yidhi dawooyinka mid ka mid wuxuu yidhi dawadaas baa ku rajo weynahay inuu ku shaqeeyo insha Allah laakiin dawadaas waa dawo oo weli imaanin hospitalka wuxuu yidhi wuxuu qaadanayaa few weeks and hadduu sii dheeraado oo few weeks ka badan qaato wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa kaniini oo xoogaa oo shrink gareeyo meelaha xanuunka kugu jira alxamdulillah wallahi alxamdulillah ducooyinkiina ilaahay wuu aqbale alxamdulillah ani walwalka igu badan oo igu jira wuxuu ahaa inaysan dhahan dawooyin kuma hayno waayo kuwa Canada jooga baa niyadda iga dalan waxay igu dhahaan dawo kuma hayno dawo ma jiro oo ku shaqeynayo maxaa la dhahaa gurigaada iska aad alxamdulillah wallahi maanta aad baan farxad u dareemayaa aad baan niyaddeedii u dhisan yahay aad baan u rajo weynahay insha Allah idinka thank you guys keep supporting me insha Allah waxaan iska dhamaanayaa oo iska imtixaan yar awal hore 6 sano oo dhan baan ku sabre waa sii sabriyaa insha Allah wallahi ma sha Allah farxad baan dareemayaa but thank you guys waana update gareynaya markuu ii fahamsiiyo dawooyinka iyo qiimaha uu noqon doono waayo halka scan hadda oo meesha halka scan oo rabo inaan qaato wuxuu yidhi waa $6,000 laakiin alxamdulillah insha Allah wax walba khayr buu ku dhamaanayaa insha Allah haddii even dawo la helo intaas baan ku farxadsanahay wallahi wax doonaha la sheego kabacdi laakiin alxamdulillah thank you guys dhammaan isoo duceyse oo dhammaan dadka oo mar walba i garab taagan والله ما قياس كرو سida emotion oo noqonay ani saaxiibkayba iyo sida aan maarkan walaashin ula qiiroonay iyo sida aan uga xunnahay xanuunka ilaaha keen anaga ma keeno laakiin ilaahay ii sheeg maxaa waxaan uga baryaynaa in walaashin caafimaad degdeg ah siiyo mideeda kale waxaan ii sheegaynaa Soomaalida waa dad aad u qiimo badan dad aad u fiican weeye because 50,000 ayaa lahay gabadha way u baahan tahay hadda almost 40,000 ilaa 41,000 la arooday 9,000 ilaa 10,000 $. dhiman waana rajeynayaa in maanta iyo biri iyo wixii ka dambeeya ay dhamaan doonto aragtida dhakhtarka kaliya aragtidiisa scanka limana aragtida $7,000 imagine ka sheekeeya marka ma sha Allah marka ilaahay ha u dib yareeyo laakiin waxaan aad uga faraxsanahay in Soomaali ka dhalatay
taasna aad ugu faraxsanaa oo haddii maanta dad kale ay ka dhalan lahayd caawinaad iyo inaasan aysan jiri lahayn ama heli lahayn. marka keep supporting. si fiican loo caawiyey maasha allah wallah ilaah oo anta dhimana u dhameystiro oo duceynayna walaasheen ilaahay ha u dhib yareeyo walaasheen intii muslim xanuunyada iyo dhibaatada ilaahay ha ka dulqaado. please haddaad fiidiyogan daawatid ha ka iloobin adigoon like gareyn ama aan share gareyn asxaabtaadana la wadaag because waxaa laga yaabaa in qof aad la wadaagtay oo ka qayb qaato adigana ajri ku tahay $10 $50 $100 $30 wax inuu qof iskaga diraa laga yaabaa. marka aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa. please ha iloobin. sidoo kale meesha lacagta loogu gurbinaan intaa soo dhigi doonaa aad ka doontiin shaashada ka arki doontiin gafan haddii aad ku wareegtiina ishag maxaa lahaa linkiga hoose aan soo dhigaynaa. haddii more information aad kusii wareegtiina snapchat-yadeena meesha ku qoraynaa sidoo kale si aan idinkugu sheegno sagal sida aad kula xiriiri kartiin xaaladeeda hadda way degan tahay sidaa ujeedeenbo